Qisadii dadkii dhallinyarada noqday. Koox ka mid ah Yuhuudda oo deganaa magaalo xeeb ku taalla oo lagu sheegay inay tahay Ilaah oo haystay diintii Nabi Muuse ayaa lagu imtixaanay inaanay kalluumaysan maalintii Sabtida oo ay cibaadaystaan kaliya. Yuhuuddii deganaa magaaladan ayaa Eebbe ka dalbatay maalin ay cibaadaystaan oo aysan shaqaynin. Kadibna Eebbe waxa uu faray in maalintii Sabtida ay cibaadaystaan oo aan la ogolayn inay shaqeystaan ama kalluumaystaan, balse maalmaha kale oo dhan way shaqaysan karaan oo kalluumaysi tagi karaan. Ilaahay kor ahaya waxa uu ku imtixaanay degmadan in kalluunka dibadda u soo baxo maalintii Sabtida ee aan la ogolayn inay kalluumaystaan. Hase ahaatee, maalmaha kale waa lagu cidhiidhiyay ama kalluunka maba yimaado xeebta oo waa la waayaa. Yuhuuddii degan magaalo xeebeedkan way u dulqaadan waayeen imtixaankii oo waxay bilaabeen in ay khiyaameeyaan Ilaahay. Maalintii Jimcada ee loo oggol yahay kalluumaysiga ayay xeebta dhigeen shabaqii lagu dabayo kalluunka, habeenkiina way kaga seexdeen si kalluunku markuu yimaado maalintii Sabtida ay ugu hadhaan shabaqa. Waxa kale oo la yidhi godad ayay qodeen si kalluunka Sabtida imaanaya ay uga reebaan. Markay arrintii u suurto gashay ayay dadkii deganaa magaaladan u qaybsameen 3 qaybood. Qoladii kalluumaysatay waxay dhaheen, "Annagu waxaan kalluumaysanay maalintii Jimco ee naloo oggol yahay." Qoladii labaad oo ah kuwa fiican ee aan Ilaahay caasinin ayaa dhahay, "Eebbe waxa uu inaga xaaraantimeeyay kalluunka maalintii Sabtida, idinkuna kalluunka Sabtida ayaad kalluumaysateen. Waa khiyaano cad ee joojiya macaasida aad wadaan." Qoladii saddexaad ayaa u tagtay qoladii wanaagsaneed oo ku tidhi, "Maxaad ka waaninaysaan qoom Ilaahay khiyaameeya oo Eebbe cadho ku soo ridayo?" Kuwani halkii ay dadka ka wacdin lahaayeen ayay kuwii wanaagsanaa ee xumaanta reebayay niyad jebiyeen. Kuwii wanaagsanaa waxay dhaheen, "Annaga waajib wanaagsan ayaa ah inaan waanino dadka xumaanta falaya. Hadday doonaan ha dhegaystaan ama ha diidaan, ee waajibka iyaga ayaa ah inaan u nasteexayno cid kasta." Dadkii deganaa magaaladan ee aan ka qaybgelin kalluumaysiga xaaraanta ah waxay xidheen guryahooda oo ka fogaadeen xumaanta iyo xeeladaha farsameysan ee Yuhuuddaasi falayeen. Maalintii dambe ayaa dadkii Sabtida kalluumaystay isku beddeleen daanyeero, kadibna waxay u tageen ehelkooda iyagoo aan hadli karin. Markay ehelkooda arkeen ayay canaanteen oo ku dhaheen, "Miyaan idinka reebin xumaanta iyo khiyaanada maalintii Sabtida?" Daanyeeradiina waxay ruxeen madaxa oo dhaheen, "Haa, Eebbe waa ciqaabay kuwii ku xadgudbay maalintii Sabtida. Kuwii kale ee wanaagsanaa waa la kor yeelay oo waa laga badbaadiyay cadaabkii. Kuwii kale iyaguna aan xumaanta samayn laakiin aan cidna waanin, iyagana waa laga aamusay, waana la isku khilaafay in iyagana la badbaadiyay iyo in iyagana lala cadaabay kuwa falka xun ku kacay." واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Weydii Yahuudi magaalada badda ku dhowaad dadkeeda markay xadgudbeen maalintii Sabtida oo kalluunkooda u imaanaya maalintii Sabtida ah isagoo muuqda, maalintii Sabtida ahayna uma timaado. Saasaan ku imtixaanay faasiqnimadooda darteed.